بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم fiirsadayaal ha ka dhawaada qodobada warka TV-ga koonfur galbeed oo si toos ah siin ku kooyaha stuudiyaha uu ka leeyahay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. Qodobada warka TV-ga koonfur galbeed isin ka fiirsada doontaan waliba kumad aha madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo geek way baahiray tababar iyo qabati wasaaradda reedindajiyowka iyo jaaliyado dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya kaas oo muddooyinkii in ka dambeeyay ku dareeray xarunta wasaaradda wafdiye hogaamiyaha wasiirka balaanta dawladda federaalka Soomaaliya iyo geeka hadeeri magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. baarlamaanka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo geeka ansaxay sharciga dhismo dawladaha hoose. dawladda Indonesia iyo markab gargaar ee geeka waybaye ku wareejiday dawladda federaalka Soomaaliya. maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo markale aan fadheetay dacwadii lan haysaday ragii ku dambeeyay dilkii wasiir Cabbaas Siraaji oo bilay la hadhaafi la ka dilay magaalada Muqdisho. akhbaaraadka banaanka TV-ga koonfur galbeed isin ka fiirsado doontaan fiirsadayaal waliba kumadaha qaar kumada wadamada Carabta oo xiriirka injaray dawladda Qatar. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyo beeniyay inuu isu xiriir ku dhaxooy madaxii hore ee ammaanka dalka Mareykanka. xubintiisa hadallaha wada yasaas oo kala fiirsado doontaan fiirsadayaal intii wararkan uun ka dhajarna intaas waliba hayana fiirsadayaal qodobada warka ka doorka roonay hatana ha ka dhawaada warkii oo shishal bahan. madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo geek hiri tababar iyo qabati wasaaradda reedindajiyowka iyo jaaliyado dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya kaas oo maalmoodii la hadhaafay ka dareeray xarunta wasaaradda ee beledkan Baydhabo. faafahinta warkan way baninhay Abdirasaaq Eedin Ibdow. waliba geeka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ka gabagabay tababar lan furi xildhibaanihii wasiir ku tirsan dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya wasaaradda reedindajiyowka qaxootooyinka iyo arrimo jaaliyadaha dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya. tababarka ujeedka geeka lanqabday aana ku mid ah wasiirada iyo xildhibaanada yahay sidii markaas yoon ku wada shaqeeyay lahaayeen xaaladaha bini'aadanimo ee deegaanada dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ku jiraan yoona maalmooyinkan ka dambeeyo tababarooyinkan iyo ka socdeen xarunta madaxtooyada dawladda koonfur galbeed gaar ahaan xafiiska wasaaradda dib u dejinta dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya. tababarkaas geeka la gunaanada yamayba uu ku qayb galay waana hayray madaxweynaha dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekheedan usoo ka boori mas'uuliyiinta goobtaasay ka sugnaaytay sidii markaas horumarka deegaanada dawladda koonfur galbeed iyo ku wada shaqeey lahaayeen. dadaalsha muuqda lanqari koran jirnay oo hadii ka korsurugno runtii oo isla arago haynaan markeeda uma santii maadalaha isku leh inta ku qayb galay wal ku faa'iideysatay iyo macallimiintii oo khubradii oo way aragnimadii aragtidii oo dawladnimada baahiyayeen oo dawladnimada dadka tusaayeen runtii eedan ka mahadnaqaana haddii dawladnimo leen helna sidoo amal inay shiradiyaan oo walkasta la daraso oo xaalado jir iyo xaalado la dhaaf yahay inta la rogo hadii leen darisna runtii markuu gudbo dadkana dhibaatooyin badan ka dhidi dhibaatooyinkaas oo inuu leeyahay xogaalaan iyo dawladlaan in nabad laan ay dhibaatadaas oo indhiyaas nabad laanta runtii waliba aha abaar dhiyaas laakiin waliba mushkilad dhiidayata socod laanta iyo dhibaatooyinka walaan oo ujeedi ka jeediban lahayna oo dawladnimadii runtii lugooyay yoon isla gooyahayaan waalid soo diloohayaan walaalsho diloohayaan ujeedi ka jeedin lahayna dhibaatada badan sheena
yoona wali in rajayna inay dawladda iyo ciidamada inay ku adkaadaan oo la kaashado doono dawladda Soomaaliyeed iyo caalamka iyo amisom wali rajayna in isfeelan ku adkaada oo ciidamada ku adkaadaan god kastiyo ku dhuumadaan la ku saaraya rajayna en dadku ha barakacay baahangeek in guriyada ka nagadaan si simbata ka jarti kulay seminaarka ka jarti wali rajayna intii la kaalmeeyo caalamka dhamaantii oo ka baaqana iyo dawladda Soomaaliyeed iyo dadweynaha dheewashay shilduun dadkaas in guriyasho ka nagadaan sidii beerasho inta abada lahaayeen iyo nabad ka hel lahaayeen la shaqeey future kan wali rajayna in la hela umaduntan inay keed helo hadii bi'ata ay badan la qod iyo warar la qoda hadii raashin ay degmo walba in raashin la ka keedi wali kala rajayna in isbitaal keed oo dhibaatooyinku ku taxdirayaan oo wal alla wali habaha kor wal ku qabadaan in la helo in ummadda Soomaaliyeed meel kasta roogdan ciidanka mahadnagaan sidii abaarta dowkeen ku jawaabeen iyo caalamka dhamaantiis iyo kan hore iyo dawladooda gacanta ku jeeysid ciidanka mahadnagaan walaha ku jawaabin way rajayna inta dhamaan dadkan ilaa beerasho walanku ku bahaayeen wali in baahanyiina inay gacanta qaayaan marka beerasho ka taabadaan wali ka nagadaan sidoo ka nagada fadan hadii oo nayleen nagna oo beerasho on ka nagan oo wali ka nagadan leensiina amaayo ka nagadan iyo on helna dhaqaaliyo ka nagadan iyo on helna way nagadaas inay wali shaqo xootaadan hadii qaxoot si hadan oo tabarmeen hayna runtii caalamkana gacan ma ku wada hayo karo marka idan ma santi wali rajaynaha inay siinaas ku bata fikrad oo taariikhda galaas oo dadku ka nagada koraan dadku ka degi koraan dadkan dalsho ee dadka Canada koraan shaqooyinka ka qabsada koraan fikiraynaas ku badasay rajayna macallimiinta oo wadiin runtii dad taariikh leh oo walaal hata idan gorada wali rajaynayna walbada ha ku baahan markii idaasi ka mahadnaga wayna rajaynayna in ummaduntan ay dadaal badan la geliyo yoona naftatiido inay ka tala galaan inay qaxootahadan wali antaraas wajirta inay idoo ka nagadaan habkii oo nagada fadayna la hel isiina wala raad kor oo oo jidla raawle oo tilmaama oo waqtiyeysan inaysan hasin ku batiyay aysan rajayn marka idaasi ka mahadnaga dhamaantiin hadeentan ku tagaan Cabdirasaaq Idiibdo Cabdirasaaq Laki TV-ga dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay baarlamaanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo geekowayba ansaxiyeen sharciga dhismo dawladaha hoose kaas oo maalmood la dhaafay biyo ku doodayeen fafaahinta warkan way banihaytay Sahra Suleymaan Muxtaar wayba geeka kulan iyo weeladeen baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed iyo weeladeen gudaha beledka Baydhabo iyo ka ansixiyeenaa meelmariyowga sharciga dawladda hoose iyo meelmariyowga qaraarka gudiyada roogtada ee baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed iyo ano marar badan la ku hadalay wayna shir gudoomiyaha baarlamaanka Abdiqaadir Shariif Sheekhuna iyo ku xigeenkii wayna kulankaasay xaadiray golo wasiirada qaar ka mid ah iyo xubno baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed iyo golo sharci dejinta wayna kulankaasay la ka ansixiyay meelmariyowga sharciyada dawladda hoose wayna ansixintaas ku hadalay oo ka dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka waa ka uu soo dhawaaqistaas ku hadalow 29 bishii Abriil 2017 taas oo ku saabsaneyd go'aan guddiga joogtada ka qaatay muddada kalfadhida golaha codbixintii goluhu uu gaaray oo ugu codeeyay qaraarkaas la ansixiyo ama la diido 72 xildhibaan ayaa ogolaatay hal xildhibaan waa diiday hal xildhibaanna waa ka aamusay saa darteed qodobkaas sidaas ayuu ansax ku yahay wixii intaa ka dambeeyay muddada waxay noqonaysaa marka insha Allah afartaa gool lagu heshiiyey la ansixiyey fadhigana wuxuu ku ekaan fadhigan saddexaadna sida taariikhda ku xusan wuxuu si rasmi ah u xirmi doonaa ilaa intii lagu gaarsiiyo 9 bisha Agost inta ka horeysa kal fadhiga baarlamaanku waa furan yahay maalin oo usbuuc waa maalin shaqo ajandaheeda wadata xildhibaanada wayna saasoo kalmeelo ku hadalay wasiirka arrimo guud Cabdiraxmaan Sate oo suuna hajeedi hindisi sharciyeedku waxaan leenahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda ahna wasiirkii soo gudbiyay sharcigan u soo gudbiyay golaha baarlamaanka
طبعا شرعيا وشرعيا ليرادو شرعيا دولدها hoose waxay ka sameysay Soomaaliya waxay qaadatay hab federalism ay qaadatay oo uu qorayo dastuurka Soomaaliya ama dastuurka federaalka Soomaaliya federalism kaasi wuxuu tilmaamayaa Soomaaliya dawladnimadeedu inay ka kooban tahay 3 qaybood oo kala ah dawladda federaalka dawlad goboleedka iyo dawladaha hoose waxaa jira qodobo dastuuri ah oo amraya oo dastuurka Soomaaliya ku qoran ee amraya maadaama Soomaaliya ay qaadatay sharciga federalismka ama systemka federalismka dawladnimada ama federalismka dhaqangelintiisa waxaa kamid ah in la dhiso dawladaha hoose sababtoo ah waxaa dhismay isteediyadii ama waxa loo yaqaan dawlad goboleedyada waajibaadkeeda qayb kamid ah waaye inay dhisaan dawladaha hoose say u dhismaan haddaba dawladaha hoose waa noo dhisan yihiin waa anaga magacaabano talaan ku magacaabana waa la isku buuqaa waa la isku maartay siyaabo badan aan wax u xallinaa dawladaha hoose haddaba waa noo dhisan yihiin waa inoo shaqeeyaan laakiin hab rasmi ah oo sharciyeysan oo qof walba xuquuqdiisa ku helayo qofka deegaanka uu degan yahay wixiisa inuu xuquuqdiisa ku helayo uu og yahay waa sharcigan hadda aan keenay waana sharciga wuxuu waafaqaya dastuurka federaalka Soomaaliyeed iyo kan koonfur galbeed qodobka 77 intaba sidaas darteed sharcigan maadaama uu yahay masiirkii ummadda Soomaaliyeed ee degan gobolada koonfur galbeed Soomaaliya masiirkii caruurteena soo socota raadkii aan uga tagi lahayn kuwa imaan doona xildhibaanadii hayeen qaar ansixiyeen qaar kale oo ku aamusan waana ku tirsan xildhibaanada oo ka ganacsan sidii oo ansixiyeen garaarku oo hadalan TV-ga koonfur galbeed way bahdaladii ku mid hayeen wali hadda waa indis sharciyaadkii wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoos oo macnaha geeka si oo aglabiil baarlamaanka ka ansahi wallanbaana muddo badan isugay maadaama intishariyaadkan balli ata haddamaatay 28 baarlamaanka loo horsheenay oo macnaha sharciyo badan iyo iswaafajin badan baarlamaanka iyo kusuubiyaan qodobadii dhammaantii oo la ku jiraa wasiirka arrimaha gudaha sifeeyaan ku jibaabi intishariyaadkii dib lahanagi akhrin lamaad la gili baarlamaankana si sax ah ku jibaabi walib waa deegaanada koonfur galbeed gurbigan hooyti wali ku dhagan galay golo deegaanka ku dhagan gale degmo kasta iyo ku dhagan galayaan doorasho ku dhiyaas dhankasna xajee hele rahiim anigoo ah magacayga Fatxi Ibrahim Baxuur ka tirsan xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya maanta waxaan ansixinay hindisi sharciyeedkii ay ku dhaqmi lahaayeen degmooyinka ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya kaasoo ku ansixinay cod aqlabiyad leh waxaan rajaynaynaa in ay dadka ka faa'iideysan doonaan dadkii dulmisanna ay dulmiga ka bixi doonaan maanta ka bilaabatana sharcigaas lagu dhaqmi doono insha Allah waxaan rajaynaynaa dulmiga in laga bixi doono doorasho ay bilaabanayso Zahra Suleymaan Mukhtaar TV-ga koonfur galbeed beledka Baydhabo wafdiye hogaamiyaasha wasiirka balaanta dawladda federaalka Soomaaliya iyo geeka hadeeri beledkan Baydhabo faafahinta warkan way baninhay Faysal Madisaaq wafdi hogaamiyaasha wasiirada wasaaradda hanraabta ee xuquuqul insaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba wasiir ku xigeenka wasaaradda hanraabta ee xuquuqul insaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo geek hadeeri magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay'eedo iyo booqasho kaseeti wasaaradda hanraabta dawladda koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo wana kulan warqaadasho ay la sameeyay shaqaalaha wasaaradda hanraabta ee dawladda koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo kulankaas saxaafadda ku hayeen hano binaan rooge markii kulanka dhamaaday yamayba saxaafadda la hadalay wasiirada wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya yaasin iyo ooye wana ku warbiidi ujeedadii safarka ka koyti magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay safar iyo waniga ku weheliyaasi wasiir ku xigeenka wasaaradda hanraabta xuquuqul insaanka dawladda federaalka Soomaaliya Samre Ibrahim Umar wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka inaan wafdi aan ku imaano magaalada Baydhabo aan ku imaano taasoo ay ka mid tahay booqashooyinka iyo aan ku tagi doono gobolada dhan wasaaradaha ka dhisan
si aan u ogaano baahiyada ka jira tan waxay ahayd imaatinkan wuxuu ahaa mid isbarasho iyo inaan soo salaano shaqaalaha wasaaradda iyo madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed waa kii koowaad aan booqashadan wuxuu ahaa kii koowaad ee aan qabanay ilaa intii aan xukuumadda cusub ee xasan cali khayre aan wasiirada u noqonay sababta aan u nimidna waxa waaye in aan baahida si dhow aan u aragno maanta waxaa fursad u yeelanay inaan la jirno ururada bulshada ee koonfur galbeed oo si wanaagsan oo maaragtay noogu waramay noo sheegay baahiyada badan ee jira iyo sidaan wax wada shaqayn lahayn waxaan kaloo hadda nimid wasaaradda haweenka ee dowladda koonfur galbeed shaqaalaheedii ayaan la kulmay waxaan u ballan qaaday wada shaqayn si dhow iyo si dheerba in aan maaragtay baahidooda iyo waxtayeyntooda iyo inaan kor u qaadno waa markiin ka horeeyay ee kooyta wasaaradda hanraabtay xuquuqul insaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay Faysal Maxamed Isaaq TV-ga koonfur galbeed Baydhabo dowladda Indonesia ayaa markab gargaar ee geek weyba ka wareejiday dowladda federaalka Soomaaliya kaas oo lanka talagalay dadka abaarta saameeyay ee ka nool qaybo kumad ee gobolada dalka Soomaaliya faafahinta warkan way baninhay Cabdiraxmaan Yuusuf Xasan Suuri dowladda Indonesia ee gargaarkii ka horeeyay oo ka talgalay dadka abaaro ka saameeyeen Soomaaliya ee ka wareejiday dowladda Soomaaliya wasaaradda gargaarka Soomaaliya ee la wareegtay deeqdunku kooyti dalka Indonesia walibana madaxda wasaaradda iyo sheegana in la deersii doono shacabka Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda gargaarka Maryan Qasima ayaa sheegtay in kuma hadnagtay dowladda Indonesia gargaarkun yahan dirtay shacabka Soomaaliyeed waana la deersii doona dadka xaqan leh wasiir Maryan Qasim iyo deeqdasay waliba ay si toos ah ka wareejiday gudiga gurmadka abaaro heer qaran walibana ay sheegtay in amaano keeta gudigaasay gudoomiyaha hay'adda ICT ee dalka Indonesia iyo waliba uu safaafayn ku biyay deeqdun iyo waliba uu saasoo kale sheegay in deeqdun iyo isku aruuriyeen shacabka dalkaasay kanool isla markaasayna dowladda Indonesia ee diyaarangata in la majibaarta gargaarkiisa siyaayta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Xasan telefishanka dowladda koonfur galbeed Baydhabo maxkamadda ciidamada qalabka wadda ee Soomaaliya iyo geeka markale wayba aan fadheetay dacwadii lanhaysadii ragii ku dambeeyay dilkii Ilaahay naxariisa wasiir Cabbaas Cabdullaahi Siraaji faafahinta warkan way baninhay Cabdullaahi Maxamuud Cafaani maxkamadda ciidamada qalabka wadiya waliba markale iyo fadheedana kiis dacwadeedkii la xiriiriyay Ilaahay naxariista marxuum Ekis wasiir xildhibaan Cabbaas Siraaji oo dilan ilaalo la socotay hanta dhowriga guud ee qaranka Soomaaliyeed golo wasiirada kaasoo ay xilka u qaadeen dacwadii dilka marxuumka kureeda dable xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Aydiid saddex degla ciidanka asluubta Usmaan Salaad Bare iyo wardii wasiirka dable xoog bilay Khaliif Cali iyo maxkamadda la horsheenay iyo oonasaas oo kala maxkamadda la horsheenay saraakiil ku tirsan ilaalada madaxtooyada oo hamiinkii dilka dhiyay ka jareen howlo qaranka Soomaaliyeed saraakiil booliska gaar ahaan qaybta dambe baarista CIA-da waxaana soo garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka wada wal ku weydiin dacwadii la ka dilay Ilaahay naxariista marxuum Ekis wasiir xildhibaan Cabbaas Sheekh Siraaji doodar iyo su'aal isweydiyo kureed iyo waliba garsooraga maxkamadda ciidamada qalabka wada iyo xeer ilaalinta ciidamada iyo ku dalbadana intii oo sheenan cadeymo dheeri saas oo kala qareenadii difaacan ee mugaasay oo lan haysida kiiska dilkee iyo ku codsadeen inta maxkamadda reedlan dhaka Cabdullaahi Maxamuud Isaaq telefishinka koonfur galbeed ee Soomaaliya magaalada Baydhabo hatana wayba ka dhawaada sana wararkii banaanka iyo Faysal Dhaayo Saudi Arabia Masar Bahrain in Saadowka Imaaraadka Carabta iyo waliba xiriirkii diblomaasiyan jarana
dowladda qatar iyo ana ka eedayn intii deganaansho la'aan kuwada gobolka wakaaladda wararka Sacuudi Arabiya ay sheegtay intii dowladda Sacuudiya iyo xiriirkan goyti hadka dowladda qatar intii arintaasi soo biday dhamaanba in isdararowki dhulka iyo biyo iyo hawadaba iyo in goyti dowladda qatar wakaaladda waliba higatay sarkaal Sacuudi ay sheegay intii ogolayna intii amaanka qaranka iyo waqaqal gilida isla markaasina la sheegay intii argagixisada iyo xagjir isla marxantaasi iyo saaciidaasa masayo beensaas oo kale sheegay intii dhamaanba baawarta qadar iyo xirti hawada iyo dekadaba isaas oo kale ku hirid sidii sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda dalka in Sacuudka Imaaraadka Carabta iyo diblomaasiyiintii qadar oo qabatay intii dowladda ku baxan afartii siyaasad gudaha iyo ana ka eedaysay intii qadar iyo maalgeliyay argagixisada sidii sheegtay wakaaladda wararka dowladdaasi ee WAM madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin sheegay intii walan ku badan isla hadalay madaxii hore ee ammaanka Mareykanka Michael Flynn markiisu iska arageen kulan ashi sharaf oo ku dhigay Moscow 2015 sawir waqtigaas la qaaday waliba uu soo horiyay wararkun isdhax maraha oo ka saabsan intii maaqulata intii xiriir dhamari maamulka madaxweyne Donald Trump iyo minkaad oo la ku aramiyo Ruushka laakiin Putin waliba soo warbaahinta NBC uu sheegay inta Finland uu laana sheegay markii ashidaasay lagu tabi kureedna Finland sida la sheegay usul ku biray shaqadii bililamaad ee sanadkii kureeda markii suminka cad ee Mareykanka uu ka sheegay warar uu ka maran habaabi oo ka saabsan xiriirka usul suubi safiirka Ruushka u fidhay dalkaasi Mareykanka Finland iyo waliba uu muujay intuu sagan leey inuu sahrubku soo qaada usoo ka dhawaaqay inuu ku hormuuqdo doona gudiga arrimo mukhaabaraadka ee qaabilsan minka ee senatarka Mareykanka si uu ku hadala wararku ku saabsan eedeymaha sheegahan inta Ruushka uu faragelin uu ka suubi doorashadii madaxtinimada ee dalka Mareykanka ku dhiyaasay madaxweyne Donald Trump iyo Hillary Clinton oo ku dhigay dalkaasi Mareykanka taasoo la ka sheegay in Ruushka uu faraha la galay musuqmaasuq ka suubi guud ahaan warkiisan ku fiirsadaasan fiirsadayaal TV-ga Koonfur Galbeed inta ninka dhanyi warkooy basiina dariirsiyaa